ganacsatada ku dhaqan gobolka Awdal ayaa si kulul uga hadlay arrinta 6 goobood ee muranku ka taagan yahay dawladda Soomaaliland ayaa rabtay inay ka mid noqdaan gobolka Maroodijeex 6 goobood ee doorashooyinka ka cakiran dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ayaa dareen kala duwan ka bixinaya arrinta uu muranka xoogan ka taagan yahay dadkani ganacsatada oo hadalkooda si wata ayaa waxa intaasi ku dareen in haddii dawladda Soomaaliland ay ka laaban weydo faragelinta ay ku hayso gobolada galbeedka Soomaaliland inay dhig ka yaqaanaan ayna dalkooda u dagaalami doonaan waxaan ka hadlayaa 6 goobood ee Maroodijeex Soomaaliland imiga inay ku dartay doonayso 6 goobood gobolka Awdal inay hayeen oo area lagu hayaayeen wax murani kama taagnin maanta laakiin dawladda Soomaaliland waxay u eeg tahay qoomiyadii dhexe ee saaqo inay dhulboob gashayba oo ina dawladnimo ma jirin malaha dawlad kale suganaaye dawladani dhulkay sii boobaysaa imiga dawladda dambe ee iman doonta dhulka ay joogaan in loo calaamadeeyay malaha sugaya taana maanta ninka ugu dambeeya hadduu hadhayo Samaroon ninka ugu dambeeya intuu dhimanayo eedada inay halkaa luga dhigaan dhulkeena ma baabacadaas oo tima laga helay bay tahay ya degdeg waad u saartaan dhakada doobi buuxsamay doolaalo waa kuwa aqaan dibad u eedaan gabay baa taamarayay nimanku waa kuwii uun innagana dagaal baa inoo ballana taasaan u sheegayaa gobolka Awdal iyo Sela wadankayga lama qaadan karo lamana bedeli karo wadankan waa wadankaygii ismana bedeli karo wadankan anaga maamulayna hadduu maamuli karo waaye wala siiraan iyo wala seelici 6 gooboodna lama qaadan karo lamana doorsan karo ilaa awowgay iyaro gabayaygaho awowgay ninkii adoonsaday ninkii aabbahay indhaha tiray ninkii anigana iibsaday haddaan ogoon ka harsan karayn haddaan abiyow ka ooli karayn ninkii aragtidiisa uurkaan ka nicabe aan ooyay albaabka ii xidh isagoo England jooga buuna dilo ushuu igu soo fidiyay iibaan beele wata arrintii oftay tirtee asaagaali iba ishaana bade aan ooyay oo siiraanya ka ooyay albaabka ii xidh dagaal baan ka aqaanaa anigu iyo dhiig sida ay noogu xidhnaa waxaan noola timaadeen inaan Sheekh Maxamuud raacni iyo inaan haddii la leeyahay dhulka ka tagna mooyaane wax noo hadhani ma jirto yaa yeelina mayno wax kasta haddii la sameeyo nin hadduu naga joogo ma yeelayno yaa waka sidaasaan anagu ku leenahay nin hadduu naga hadho yeeli mayno halkii shalay aan ugu dooranay dawladda ku dhisay haddaad maanta tiri halkii baan qaadanayaa oo baabi'ini isma barana waa isbaranaynaa weli isma baran sheeki iyo dawladdu ma isku baranay iyo wadaada iyo wanaagu ma isku baran weli aad nooma aqoonsan kara bulshadu dad yahay in kale waa isbaranaynaa haddaa 6 sanduuq laga celin waayo nin hadduu naga hadho ma yeelayno nin hadduu naga hadho waxaan leeyahay hadda suldaanka hadlayna bashoy libaax baa yaadiraha noqonina waxba ka celin maysa dawladda bal meeshii u baynoo taalade sanduuqyadu baynoo yaalaan wax kasta haddaad samaysana ma daynayno ya anna waan soo alaab qaataadno ima dheh halkii baan kugu sugayahay ya waka waxaan la hadlayaa anigoo gobolka Awdal jooga oo Boorama ka hadlaya waxaan ka hadlayaa halka 6 gobol ee maanta ii doorku wuxuu leeyahay soo faradheeraan iyo soo farageliya waxaan leeyahay suldaankii shalay hadlayay dib isku noqon labada dhagood yaabka u hadayso waxaan leeyahay lama baabacsado lama raadaysto nabadu nin walba waa wadan gobolka Awdalna waa waxa weeyaan qabadii Soomaaliland weeyaan hadda galinka ka joogsan weydina annagoo dumar aan calanka Soomaali weyn qaadanayno Soomaali weyn ma qaadanaynayo waxaan raacaynaa Xasan Sheekh Maxamuud baan raacay 6 gobol darteedna waan uga baxaynaa Soomaaliland waan uga baxaynaa war luquntii Soomaaliland baan maxaa naga dib noo reeb war haddaan noqon weyno laba guri yeelan weyne ma waxaad noo qaadan oo maqbudun baad noo saliido nagala hadaan nagala hadi weydina annaguna wixii dad samayn jiraan samaynayna waxaan ka hadlaynaa ummadan meeshan iska doonaysa iska lay waxay doontaba dhul horta dacawma hawla la qalqaadanay ma ya wasiirna iska dhawaaqay isaga dantiisa u dhawaaqay kowri meesha dani walba xad buu leeyahay ya nin walba xad buu leeyahay xadkuna waa wax ingiriis dhigay maaha wax la raro oo kolba meel la geeyey ma weeyaan dhulku waa dhul kala qaybsan wadanku kala qaybsan yahay وإما قال الله وضوضنا معها والله سمعنا معه وحول الله نقول عبر الله سمي
markaa dadkan iska dhawaaqaya iyaga daalaya annagu qorina waa ka dhaqaanaa dhimashana waa ka dhaqaanaa yaa dhulku ay doonayaan iska qabsadaan ay iska leeyihiin waxaan waa maxay bay ku biiraysaa iyo maxay waxaas waxaan la gala maaha kamana yeelayno way garat yaa waxaan kale ku darayaa yaa dawladdani wax walba iska magacaabaysa howlaha yaa siiraayo dee wuu sii amba baxayaa siiraayo wuu sii amba baxayaa oo waa ninkaa iska dadaada kowley markaa sida ugu degdeg badan haddii wax looga qaban waayo yaa waan gacmaha ka shaqaynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la hadlayaa anu ninka dalkan xakumaale ee waliba siiraayo siiraayaan la hadlayaa waxaan ummadanaada ka mas'uula adaa aabow ah dagaalka hala joojiyaan lana anagu hadan way reejo gutinahay hala joojiyo dhulkana dad baa iskale annagu reejo gutaadaanay wixii inta halka joogana way soo baxayaan waa la iska kaacilin waa la iska kaacilin cid ka baqaysa ma jiro raggayaga iyo dumarkayaga waan iska kaacilinaynaa dhulkayagana qaadan maysid wayna dhabaata sheekadii Ibn Axmed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام أي إيمانية حلا أصحاب المعارض كي وزير كريمها جودها شمال اللعن أي كل شيء كان كلنا يسوقي مادين ديوان جنتا لقى براب الدونو جوابها هره وقع كرنا ديوان جنتا حكومة شمال اللعن أي إسكت دقات كينيسا هذا لا كصوير يا عقاشة لأن يرضى يا وحكرت ككل قن قبل كأوضل تدوينها كل قن مقالة نبورما يا كجدولسن هذا لا كصوير يا مسؤولين تصريح حكومة شمال اللعن ومحمد أحمد موسى ريا تي في بورما.